بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 754 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 2 bishii afraad rabiicu thaani sanada 1447, isla markaana waafaqsan 24 bishii sagaala sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magacdara almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya wa ziyaadaatuhu. ayaanu ku jiray qeybtiisii ku saabsanayd fadlu tawxiidi wa ahmiyatuhu, kelimatu tawxiidka fadliga ay leedahay iyo ahmiyadeeda, oo min shucab aliimaan aan qaybo kaga soo qaadanay. fadlu laa ilaaha ila allah, fadliga ay leedahay iyo qiimaheeda. xadiidkan waa xadiidkii saddexaad mase xadiidka afraad wey, oanu qaadanayno fadligeeda ka hadlaysa, fadliga kelimada tawxiidka. xadiidkan waxaa soo saaray alimaam ibnu maaja kitaabkiisa sunanka, sidoo kale alimaam tirmidi kitaabkiisa sunanka, sheekh albani iyo nasaa'i kitaabkiisa sunan kubra, sheekh albani raxmatullaahi calayhi sunan tirmidi iyo sunan ibn maaja labaduba wuu ku xasanaynaya. sunan ibn maaja 3800 wey, sunan tirmidina 3383 wey, waana isku wada lafdi labadooduba. inta markaanu ka tagno xadiidka macanihiisa muxuu waa xadiid yaroo kooban, laakiin fadli badan iyo qiimo badan xumbaarsan wey. jaabir bin cabdillaahi wuxuu leey radi allahu tacaala canhu wa ardaah: samictu, waxaan maqlay buu ihi rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu, asagoo le rasuulku: afdalu dikri, dikrikana ugu fadli badan, laa ilaaha ila allah wey, waa kelimatu tawxiid. fadli bini aadam kelimuu ku dhawaaqa waxa ugu fadli badan waa kelimada tawxiidkao laa ilaaha ila allah. wa afdalu ducaai, ducatana ugu fadli badanna alxamdu lilaahi wey. idan ikhwatii fillaahi, labadan jumlo ee xadiidku ka kooban yahay labaduba laba macno oo culus bay ku tusinayaan. jumlada koobaad, afdalu dikri laa ilaaha ila allah, dikri lagu dhawaaqa waxa ugu fadli badan waa laa ilaaha ila allah wey. duca waxa ugu fadli badanna waa alxamdu lilaahi wey. haddaba su-aasha koowaad ee imanaysa, afdalu dikri markaad tiraahdi, ayay qur-aanka iyo dikriga yaa fadli badan. culimmadu labay u kala qaadeen. mar sida haalibkaa ama dhinaca kale haddaan u dhigna, waxay leeyihiin waxaa lagu fasiri karaa waxaa ugu fadli badan waa qur-aanka weyana waxaa la dhihi afdalu dikri bacda alqur'aan. qur-aanka kadib dikriga waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah wey. si lisu waafajiyo, waxaa ugu fadli badan lagu dhawaaqo waa kalaamka ilaahay wey, oo qur-aanka tilaawadiisa iyo akhrintiisa. idan qur-aanka wixii ka sokeeya waxaa dikriga ugu fadli badan laa ilaaha ila allah wey. taas waa qodobka ay culimmadu qaabkay u jamciyeen weeyaan, qur-aanka fadligiisa inuu mudlaqa yahay ugu fadli badan yahay, bacda alqur'aanna kelimadana ugu fadli badanta. waxaa kaloo ay culimmadu dheheen qur-aanku had iyo jeer dikriga uguma fadli badnay dheheen. maxaa yeeley waxaa dhici kartaa li shay dikriga oo laga fadli badan yahay inuu mararka qaarkood shaygii dikriga ka fadli badnaa uu ka fadli badnaado. oo macnaheedu muxuu yahay? goobaha lagu yidhi dikri, goobaha uu dikri khaasa ku soo arooray qur-aan haddaad akhridi wax fadliga ma lehid. qur-aan bal waxaa laga yaabaaba nahyi inaad ku dhacday. maxaa yeeley dikri baa lagu sheegay meesha, dikrigaa ku akhri baa li. tusaalehaan haddaan soo qaadano, rukuucda markaad rukuucsan tahay subxaana rabbiya alcadiim akhri baa layidhi. ka warran aayad qur-aan haddaad iska qabsatid, suuratulbaqara haddaad qabsatid ka warran, faatixada haddaad akhridi ka warran, lagaa yeeli mahayo wey. sujuudda sidoo kale subxaan rabbiya laclaa baa lagu yidhi akhri. idan goobaha noocaasoo kale mucayanka dikriga ku soo aroor, dikrigaasaa ka fadli badan meesha inaad qur-aan ku akhridi. marka ma la soo boodi mayso, dhihi maysi qur-aanka wax kasta u fadli badan.
nacam qur-aanku waa fadli badan yahay, dikriga isaga u fadli badan, laakiin goobo waxaa jira laga fadli badan yahay oo inaad qur-aan ku akhrida mamnuucta nusuus ku soo aroortay. idan rukuucda iyo sujuudda dikri baa ku soo arooray. dikrigaa inaad akhridi baa ka fadli badan qur-aan inaad akhridi. bal qur-aan haddaad akhridi halkaas ma ansaxayso, kaagama gudi maayo, dikrigii kaa gudi maayo. sidoo kale carafa nabigu ducuu yidhi afdalu maa qultu ana wannabiyuuna, maalinka carafa wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahu weeyaan, wa afdalu ducaa ducaau yowma carafa. yani aniga iyo ambiyadii waxaa ugu fadli badanay maalinka carafa ay ku dhawaaqayeen laa ilaaha ila allahu wey. quraan in la akriya weeyaan nabigu muuse dheh. idan culimmadu waxay dhaheen dikriga qur-aanka fadli badan, laakiin meelaha uu ku soo arooray dikri khaasa, zaman iyo maaragtay waqti iyo makaan, dikri khaasa ku soo arooray qur-aanka, marka meeshaas waa laga fadli badan yahay. tusaale ahaan adkaaru sabaax walmasaa, subxii adkaarta layidhi ha la akhristo, iyo galabka adkaarta layidhi ha la akhristo, iyo adkaaru noom, hurdada adkaarta layidhi ha la akhristo, iyo guriga markii laga baxayo alkhuruuj min almanzil adkaarta layidhi ha la akhristo, masaajidka markii la gelayo adkaarta layidhi ha la akhristo, markii masaajidka laga soo baxayo adkaarta layidhi ha la akhristo, iyo wixii lamid markii musqusha la gelayo adkaarta layidhi ha la akhristo. idan intaasoo dhan marka laisu galmoonayo adkaarta layidhi ha la akhristo, gid marka cunto la cunayo adkaarta layidhi ha la akhristo. dhammaan awqaadaha iyo amaakintaasoo dhan adkaartaasaa fadli badan. qur-aan la iman mayse oo dhihi mayse qur-aan baan akhrinayaa, dhihi mayse. saa darteed ba culimmadu waxay dhaheen qad yakuunu lmafduulu, kii laga fadli badnaa inuu ahadaa dhici kartaa faadilan, mid ka fadli badan calaa faadilihi. marka kii mafduulka ahaa inuu ka fadli badnaadaaba laga yaabaaba min alfaadil, inuu ka fadli badnaadaa dhici karta, amaakin iyo azmine khaasa. idan marka taas markaa arrintan waxay dhaheen marka afdalu dikri waxaan ku fasirayna bacda alqur'aan. amaa dikriga mudlaqa markii la dhaho oona amaakin iyo zaman aana ku xadidnayn, qur-aanka ka fadli badan. dikri iska mudlaqa oona meel iyo zaman iyo goob lagu qaydin iyo qur-aanka fadli badan wey. amaa dikriga muqayadka ka fadli badan. idan saa darteed marka kan waxaanu leenahay culimmadu dhaheen afdalu dikri bacda alqur'aan wey. dikri kana ugu fadli badan bacda alqur'aan laa ilaaha ila allah wey, waa kelimatu tawxiid. wa afdalu ducaai alxamdu lilah. alxamdu lilah ma dikri baa mase waa duco? waana dikri waana duco wey. kelimatu shukri weeyaan. alxamdu lilah markaad leedahay yani lisaan xaalkaada waxa ilaahay baa mahadsan, ama maarata carabkaada ilaahu adaa mahadsan, isla markaana waxay xumbaarsan tahay ilaahu inoo ziyaadi wey. lain shakartum laazidannakum weeyaan. marka kelimatu shukrida alxamdu lilahi baa ka mida. alxamdu lilahina waa dikri weeyaan, waana duco wey. labaduba marka way leedahay ducaau mas'ala iyo maarata iyo waxay kale iyo yihiin, iyo ducaau lxaal iyo maaratay iyo ducaau lcibaada. ducaau lmasala iyo ducaau lcibaada, yani ducada masalada waa weydiinta ilahay wax weydiisanaysa, waa duco wey. ducaau lcibaadana waxaa weeyaan cibaadadaad samaynaysa duco weeyaan. qur-aan baad akhrisanaysaa, macnaheed waxay ka dhiganta ilahu qur-aanka fadligiisa isii wey. salaad baad tukanaysaa, ilaahu salaadana tukanayo fadligeeda isii wey, iga aqbal wey. sadaqaad bixisa, ilaahu iga aqbal. markaa ducadaas cibaadada aad samaynaysa waa duco wey. duco weyan ficilkaadaas markaa shayga cibaadada samaynaya macnaheedu ducuu xumbaarsan yahay. aqwaasha qaarkood dikriga qaarkood marka dikriga wuu noqonaya, ducana wuu noqonaya. idan nuxurka xadiidkan ooga jeedna waxaa weeye kelimatu laa ilaaha ila allahu tawxiidka fadligeeda iyo qiimahay leeda. afdalu dikri laa ilaaha ila allah wey. dikrigana ugu fadli badan bacda alqur'aan waa laa ilaha, oo dikriga mudlaqa oo zaman iyo waqti makaan ku qaydnayn laa ilaha ila allah wey. wa afdalu ducaaina alxamdu lilahi wey. dikri kooban weeyaan. idan laa ilaaha ila allahu inaad badisi fadliga faraha badan iyo qiimaha badan bay leedahay. alxamdu lilaahi sidoo kale qiimaha faraha badan bay leedahay oo aad iyo aad u qiimo badan. ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa dikrigiisa ku dadaala, inuu ilaahi subxaanahu watacaala naga dhigo. maxaa yeelay laa ilaaha ila allahu waxaa weeyaan waa kelimo aad u qiimo badan, fadli fara badanna leh,
إلهي سبحانه وتعالى عرب كأنها كبضيو هل مربع حديث كاللفظي قيس آخرنا يا الحديث 754 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه الترمذي وابن ماجه والحديث حسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.